waxaan loogu dooday arrimo muhiim ah ay ka mid ahaayeen xaaladda amni ee waddanka maanta u marayo khaasatan dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe ee Soomaaliya 2 habeen ka hor arrintaas aad ayaa loo falanqeeyay waxaana la isku raacay in warbixinta ay keeni doonaan guddigii loo saaray oo daadinayo wasiirka cadaaladda in laga warsugo laakiin ay tahay dhacdo in ay tahay wax laga barto aan loobiyana inaysan ku soo noqon waddanka waxa kale oo si aad looga hadlay arrimaha COVID-19 oo maadaama adduunyadii maanta isfurfurayso diyaaradihii la fasaxay Soomaaliya ay ka mid tahay dunida in foojignaan dheeraad ah ay dawladda iyo hay'adaha u gaarka ay ka baxshaan maadaama isu socodku uu badanayo rogaal celin uu ku sameeyay meelo ka mid ah adduunyada inaan marna aanan gaardkeena ama aanan hoos u dhigin maxaa la dhihi jiray ka warqabida COVID-19 kadib wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ayaa waxay soo bandhigtay ajenda ah inay Soomaaliya ka qayb gasho suuqa xorta ah ee Afrika ee continent Afrika arrinkaas wuxuu aad u dhaliyay dood fara badan oo golaha wasiirada ah oo lagu qiimeynayay waxa ugu jiro dan ah Soomaaliya inay maanta ka qayb gasho suuqa xorta ah ee Afrika oo annagana aan badeecadaha geysan karno wadamada Afrika ayagana ay noo keeni karaan kadib dood kulul ka dhacday golaha wasiirada waxay golaha wasiirada ku ansixiyeen si aqlabiyad ah inay Soomaaliya ka mid noqoto suuqa xorta ah ee Afrika. Wassalaamu calaykum warahmatullahi